maxaa ka dambeeyey kadib kulankii Biden iyo Erdogan furitaanka bog cusub mise khilaafaad hor leh Turkiga miyaa ku soo noqon doona barnaamijka F-35 hadallo wanaagsan iyo soo dhawaansho ayaa yimid kadib kulankii dhex maray madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa Mareykanka Joe Biden isniintii la soo dhaaf kaasoo ka dhacay caasimadda Belgium-ka Brussels halkaasoo lagu qabtay shirka gaashaanbuurta NATO kulanka waxaa ku horreeyay baaq uu u diray madaxweyne Erdogan Mareykanka si looga gudbo mushkiladaha taagan oo ay ka mid tahay muranka adag ee ka dhashay soo iibsashada Turkiga nidaamka difaaca S-400 ee Ruushka ka hor inta uuna u bixin madaxweyne Erdogan Brussels waxa uu shir jaraa'id ku sheegay in wada hadallada diiradda lagu saari doono iskaashiga mustaqbalka ee labada xulafadeed u dhaxeeya iyo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka iyo kala qaybsanaanta faylalka S-400 iyo taageerada Washington ururka Golan iyo sidoo kale ururada PKK, BYD, YPG ee waqooyiga Ciraaq waa arrimaha ay ku kala aragti duwan yihiin labada dhinac ku xildheerayaasha arrimaha siyaasadda ayaa u arka kulanka labada madaxweyne inuu meesha ka bixiyay xaaladii shaki ama hubaanti la'aanta ah ee saamaysay xiriirka labada waddan arrintaa oo lagu macnayn karo in dowrka Turkiga NATO ee wax ku oolka uu jawaab u yahay hadallada reer galbeedka ee ka dhanka ah Ankara waxaa la qiyaasayaa in arrinta soo dhiibista xubno ka mid ah ururka Golan ay taagnaan doonto halka qadiyadda S-400 la xallin doono waqti dambo dhinaca kale taageerada Washington ee ururada uu Turkigu argagixisadu u aqoonsan yahay ayaa laga yaabaa inay sii fogeyso khilaafka labada waddan arrinta cusub ee in Mareykanku dhawaan uu aqoonsaday dhacdooyinkii dhacay 1915 inay ahayd gumaad baahsan waxay ku sii jiri doontaa ajandaha labada dhinac laakiin waxba uma dhibi doonto xiriirka labada dawladood xiriirka Turkiga iyo Mareykanka waxaa soo food saaray dhibaato qaab dhismeed oo qoto dheer laakiin waa uu sii socon doonaa si ku dhisan tartan iyo iskaashi iyadoo uunan saamayn doonin siyaasadda arrimaha dibadda xilliyada dhow